halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. duhur wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegaysatay waa isniin 2 August saacadda Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 2 Ogowa. wararkan idaacaddan duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah natiijada doorashada xubnaha aqalka sare dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo soo baxday. hogaamiyaha ciidamada falaagada Tigray oo waraysi dhifasiyay BBC-da. sicir bararaan hore uga jirin dawlad deegaanka Soomaalida oo aad ugu sii fidaya. maxaa uu sababa duruuftan haatan taagan? dad waxaa jira ka faa'iideysanaya oo dadka khalkhal gelinaya oo dhahaya xaaladan iyagoo la xiriirinaya xaaladan waddanka ka socota waqooyiga in ay waddanka iyo dadka khalkhal gelinayaan. taa waxay sababtay marka in dad badan lacagahoodii bes ay haysteen ay la aadaan xaggaas oo isku dayaan inay sarriftaan iyo bedelaan. golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland oo berri u fadhiisanaya doorashada gudoomiyaha. haddaba sidee ay u dhacdaa doorashada gudoomiyaha goluhu? warbixin baan idinka haynaa. wararkii ciyaaraha intaa dheer. soo saaraha barnaamijku waa Maxamed Cabdiraxmaan oo Axmed Nagaashiina waan idin socodsiinaya. duhur wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay inoo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Xasan Cali Geelle. Xasan. mahadsanid Axmed Nagaashe. maxkamadda sare ee Israel ayaa go'aan ka gaari doonta suurtagalnimada in dadka reer Falastiin laga saaro xaafad ka mid ah bariga Qudus ee Israel ay haysato. arrinta Sheekh Jarrah ayaa horaantii sanadkan uga sii dartay xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe. maxkamadda sare ee Israel ayaa go'aan ka gaari doonta in 4 qoys oo reer Falastiin ay racfaan ka qaadan karaan iyo in kale xukun ay horay u riday maxkamad hoose oo u hiilisay dadka Yuhuudda ah ee doonaya inay degaan xaafadaasi. qareenka qoysaska reer Falastiin ayaa sheegaya in nidaamka dawliga ee Israel uu ka eexanayo iyaga. Thabit Abu-Ras oo ah afhayeen hay'ad maxalli ah u ololeysa sinaanta dadyowga ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in go'aanka maxkamadda uu yahay mid dunida oo dhan ay wada sugayso. waa arrin anshax oo siyaasadaysan oo leh awoodda uu ku hurin karo colaadda Falastiin iyo Israa'iil. aynu xasuusanno in beesha caalamka oo ay ka mid yihiin maamulka Joe Biden ay ka soo horjeedaan ka saaridda noocaasa. dagaalku runtii ma ahan mid u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah dadka Yuhuudda ee deegaanka, laakiin waxa uu u dhexeeyaa Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'iil. waxaan rajaynayaa in Israa'iil ay qaadan doonto go'aanka saxda ah si ay arrintan xal ugu hesho. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in bixitaanka kediska ah ciidamada Mareykanka ay ka baxeen dalkiisa ay tahay arrinta sii xumaysay xaaladda nabadgelyada ee dalkiisa xilli weerarka ururka Taliban uu halis gelinayo 3 magaalo oo ka tirsan dalkaasi Afghanistan. hase yeeshee madaxweyne Ghani ayaa ku adkaysanaya in xaaladda la xakameyn doono muddo 6 bilood gudahood ah. magaalada Lashkargah kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa lagu soo warramayaa in ay gacanta ku hayaan dhammaan xaafadaha magaaladaasi marka laga reebo 2 xaafadood. gabadha ciyaaryahanka ee reer Belarus ee ka qayb galaysa ciyaaraha Olombikada Tokyo, Kristin Timashyoka, ayaa lagu soo warramayaa in ay gashay safaaradda Poland ee ku taala Tokyo si ay halkaasi magangelyo u weydiisato maalin kadib markii saraakiisha dalka Belarus ay isku dayeen inay xoog ku saaraan diyaarad geyn lahayd dalkeeda Belarus. guddiga Olombikada Belarus ayaa ku doodaya in gabadhaasi laga saaray kooxda matalaysa dalkaasi sababo la xiriira caafimaadkeeda maskaxda. dowladda Shiinaha ayaa shaacisay inay korortay tirada dadkii ku dhintay fatahaadihii baanaa ee bishii lasoo dhaafay ku dhuftay gobol ku yaala bartamaha ee Henan. 302 qof ayaa haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen fatahaadahaasi. 50 qof ayaa ilaa haatan la la'yahay, kuwa oo qaar badan oo ka mid ah lagu waayay caasimadda gobolkaasi. ugu dambeyntiina jilaaga caanka ee reer Hong Kong ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta musuqmaasuq kadib markii sanadkii 2018 uu 2 heesood ka qaaday isu soo bax mucaaradku ay ka dhigayeen magaaladaasi. Anthony Wong iyo xildhibaan hore oo lagu magacaabo
Aunokin ayaa lagu eedeeyey inay xirfadooda madadaalada u adeegsadeen inay saameyn ku yeeshaan natiijada codbixinta doorasho halkaasi ka dhacaysay. warkii caalamkana waa naga intaa idinku wareejiye Axmed Nagaashe iyo qaybaha kale barnaamijka. aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan cali geele oo warkii duhurnimo inoo marinaya ayuu kaasi ahay. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waa tahay dhegeystayaal aan ku bilownay waxaa maalmahanba socday doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid ah. waxaa maantana qaarkood loo fadhiistay in la soo saaro xubnaha ku matali doona aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo haatan markii ay doorashadaasi qabsoontay qaarkoodba lagu dhawaaqay xubnahaasi. wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan ayaa wararkaasi toos ula socday oo haatan khadka toos ugu jira. Ibrahim, sidee wax u dhaceen? axmed ibraahim 5 kursi oo maanta lagu tartami doono 2 ka mid ah ayaa tartankooda u dhammaaday. 2 kursina waxaa ku tartamayay dumar oo keliya. kursiga hore waxaa ku tartamay samsam ibraahim cali iyo shariifa xaaji cusmaan ibraahim. 29 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed ayaa codeynayay. 81 ka mid ah waxay u codeeyeen samsam ibraahim cali, halka shariifo xaaji cusmaan ibraahim ay heshay 4 cod. 7 cod oo ka mid ah 29kii codeeyeyna way xumaadeen sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen. samsam ibraahim cali waxay hore uga tirsaneyd isla aqalka hadda ay u tartamaysa ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. kursigii labaad ee lagu tartamay axmedow waxaa iyana ku tartamay gabar la yidhaahdo ayaan aadan cabdilaahi iyo farxiyo nuur aadan. ayaan aadan cabdilaahi waxay heshay 79 cod, halka farxiyo nuur aadan iyana ay heshay 8 cod. waxaa xumaaday 5 cod. tirada dadka codeeyeyna waxay ahaayeen 92 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed. 5 kursi, 2 kursi ayaa dhammaatay. waxaa hadda la sugayaa 3 kursi ee kale in ay bilowdaan. 3 kale kursi waxaa dhammaantood ku tartamaya rag. kursi waxaa ku tartami doona nin la yidhaahdo aadan cabdinaasir maxamed iyo maxamed xasan aadan. kursi kalena waxaa ku tartami doona nin la yidhaahdo dr xuseen maxamed daahir iyo xasan maxamed nuur. kursiga kalena waxaa ku tartami doona maxamuud maxamed cabdinuur iyo nuur baabul cadde. waxaa la filayaa in 5 kursiba axmedow maanta lasoo gabagabeeyo. koonfur galbeed waxa u hari doontaa 3 kursi oo aqalkan ka tirsan. aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Maxamed Aadan ayuu kaasi ahaa oo faahfaahinta ayna siinayay. dhegeystayaal wixii warare ka soo kordhayna waxa aanu idinku soo gudbin doonaa idaacadaha dambe haddii allaha awoodda la hidmo. waa tahay bal haatana xagga Itoobiya. wararka ka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa sheegaya in sicir bararku kor ugu sii kordhayo deegaankaas, arrintaas oo sabab looga dhigayo sarifka lacagaha qalaad oo cirka isku shareeray. waxaana la sheegay in halkii doolar uu haatan gaadhay 70 ilaa 75 bir, taasoo keentay in xataa ganacsatadii ay meelaha qaarkood xidhaan meheradahoogii. haddaba xukuumadda deegaanka ayaa shir degdega ka yeelatay sidii arrintan wax looga qaban lahaa, waxaanay maanta magaalada Jigjiga u fadhiisteen shirkaasi. wasiirka ganacsiga Bashiir Shaafi Cumar oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa iga warramay tallaabada ay xukuumaddu damacsan tahay inay ka qaado. marka horese waxa uu faahfaahinayaa waxa sarif bararka laftiisa ay u aanaynayaan. xaaladan dhowr arrimood baa talaba xaaladda ugu weyn ugu muhiimsan haddaan soo qaadano waa kor u kaca sarifka suuqa doolarka ayaa keenay. taas ayaa xoogaa kor u kacday weliba khaasatan kan suuqa madow. taas ayaa sabab u ah. marka taas ayuu ahaa maanta shirku xaaladda si wax looga qaban lahaa ayuu qaadirsanaa oo ajidahu taas u ah. marka in go'aamo noocma aad qaadataan baad ku gaadheen shirka maanta? go-aamo dhowra kasoo baxay. go-aamada kasoo baxay shirka golaha fulinta maanta wuxuu ahaa waxaa kasoo baxay dhowr go-aan oo midda ugu horeysa ay tahay dad waxaa jira ka faa'iideysanaya oo dadka khalkhal gelinaya oo dhahaya xaaladan iyagoo la xiriirinaya xaaladan wadanka ka socota waqooyiga in ay wadankii iyo dadka khalkhal gelinayaan. taa waxay sababtay marka in dad badan lacagahoodii bes ay haysteen ay la aadaan xaggaas oo isku dayaan inay sarriftaan iyo bedelaan. taas marka waxay keentay in dadku ay deganaansho la-aan iyo waxaa intay sababto ay lacago badan ay oo bir ah la geeyo xagga xadka oo dadku ay doolar beydayaan. midda labaad waxa weeyaan deegaanka waayahan u dambeysay isbedelka ganacsi iyo xaaladda ku timiday dad badan oo ganacsata oo waddanka dibadiisa ka yimiday oo isaguna doonaya inay helaan doolar. guud ahaan doolarkii waddanka oo yaraaday marka dadkii ka heli jiray bangiyada doolarka oo intay ka waayaan xaggan usoo leexday. inahaas baa usala. laakiin go-aamada ugu muhiimsan ee maanta soo baxay waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan in xukuumad ahaan aanu sameyno shirkad ama company ay leedahay dowladdu oo annagu aan maamulo oo lacagta dowladda la geliyo si raashin jaban ay usoo iibiyaan dadkana raashin jaban looga iibiyo suuqa. marka company noocaas in si degdeg loo asaaso haddii la yidhaahdo oo ganacsada la tartamo oo suuqa loogu ilaaliyo. midda labaad
in raashimada hadda ka hor xiliyada waxyaabahan oo kale markay dhacaan si cashuur dhaaf laga dhigi jiray oo duty free ayaa raashimada loo sameyn jiray intii kale waraaqa degdeg aan qorno hadda guddi la sameeyo federaalkan ku codsano inay noo soo daayaan raashinka cashuur dhaafka free laga dhigo ka saddexaad oo kasoo baxay isaguna wuxuu ahaa dhammaan bangiyada ama xawaaladaha ama ashkhaasta ku lug leh howlahan korukaca lacagta inta laga degdega laga qaaday iyagana dowladda oo hadda almost hadda xaaladda dowladda lagu cid kasta oo lagu helo banki kasta oo lagu helo ama xawaalad kasta ama shakhsi kasta oo lagu helo inuu la kuliyahayna tallaabo laga qaadi doono qodobka afraad ka soo baxay xoogaa ganacsadii ayaa waxay sameeyeen inay meheradii xiraan ayna iibinin raashimadii oo iyagoo u sababayna dhahaan waxaan ku iibina ma garana xaaladda sicir barka dadka waxyaaba noocaas doolarka isbedel dartii marka taana in dadku ay suuqyada caadi kusoo celiyeen ay furaan meheradaha cidda lagu arkay iyadoo meheraddeedii ama bakhaaradeedii xidhaysa ama si khaldan wax u iibinaysan iyo talaabo qaadano marka si caadi soo noqdo qodobadaas ugu muhiimsan walaal waa tahay waxaad carabka ku dhufatay inay dowladdu doonayso in ay wakaalad furato qudheedu ganacsiga dhinac ka gasha taa miyaan loo qaadan karin inay doonayso maamulkii inuu suuqii xortahaa qudhiisu uu gacanta ku dhigo oo uu dadkii gacan bidixeeyo sidee dadka taa uga dhaadhicinaysaan laba arrin baa la samaynayaa mid ganacsatadii jirtay ee caadiga ahayd canshuur dhaaf loo samaynaya in iyagu ay helaan ay raashin canshuur dhaaf helaan kambanigan waxaa loo danaynayaa waa dadku bulshadu inay helaan raashin jiban wey marka kambanigan isaga la samaynayay waxa uu qeyb ka noqon doonaa monibeli ma noqonayo ganacsigana faraha kuma dhigayo kastana sideeda ayuu soconayaa laakiin isagu maadaama uu dooli yahay iyagu doonaya inay xidhaan xiliyadan oo kale ayuu isagu suuqa inuu raashin xawla soo geliyo oo uu keeno meeshii oo xilligan oo kale uu isagu qayb ka noqdo oo xal noqda loo sameynaya wax yani caqabad ku noqonaya ganacsada waa in bulshada ay xal u noqdo wax loo sameynayo wey haddii doolarkii ganacsatadii dibadda wax ka keenayay ay u baahnaayeen bangiyadii dowladdu aanay siinayn oo aanay ka helayn sidaad carabkaba ku dhufatay suuqii madoobaa inay u doontaan oo u kaco sow qasab ma noqonayso arrintaa bangiyada maxaad wax uga qaban weydeen marka hore tan waataan kuu sheegay bangiyada waxbaa laga qabanayaa markii horeba wuu yaraa doolarka waayahan dambe exportiga mar hadduu yaraado xoogaa doolarka soo galaya wadanka wuu yaraan karaa iyadoo eegaya xaaladan wadanku ku sugan yahay dagaaladii wax socda laakiin hadda waxa samamay korukacan hal mar booday weye waxaa loola dagaalamaya taas oo ah dad si khaasa ganacsato iyagu si khaasa u doonaya inay dadka ay oga faa'idaystaan oo xilligan oo kale ay chance uga helaan taa wey waxaa loola dagaalamayo bangiyada noocaasana waan kuu sheegay tallaaba laga qaadaya bangiyada iyagu samaynaya iyo xawaaladada samaynaya iyo ganacsatada ku lug leh ee korukacan iyagu xawliga samaynaya ee ka qayb qaadanaya tallaabo degdega laga qaadanaya insha allah hadii la yidhaha wasiirka ganacsiga dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya bashiir shaafi cumar ayuu kaasi ahaa khadka jigjiga iigu warramayey goor dhoweyd halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da saacadduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:13 daqiiqo b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay bal haatanna hargeysa berri waxaa fadhigoodii ugu horreeyey yeelanaya golaha wakiilada ee cusub ee jamhuuriyadda gooristaageeda ku dhawaaqday ee somalilan fadhigan waxaa lagu dooranayaa hoggaanka cusub ee uu golahu yeelan doono oo loolan adag ay xisbiyadu ugu jireen intii doorashada ka dambaysayba warkan waxaa inoo haya sidiiq maxamed burmad berri waa maalin in badan la sugayey 82 xubnood ee lasoo doortay ayaa markii ugu horreysay isugu iman doona aqalka wakiilada oo ah goobta ay ku shaqayn doonaan waxaa la filayaa in dad fara badan ay isugu yimaadaan goobtaasi berri subax xisbiyada oo loolan adag ku soo jiray ayaa ku kala calaf qaadi doona guusha ah cidda shirguddoonku uu noqon doono ugu horreynse waxaa lagu dhaarin doonaa goobtaasi xildhibaanada xilka qaaday dhaartaasi kadib waxaa loo codayn doonaa 6 xildhibaan oo 3 ay ka socdaan xisbiga talada haya ee kulmiye 3 kalena ay ka socdaan isbahaysiga labada xisbi mucaarad fadhiga waxaa shirgudoomin doonaa sida uu xeerku golahu uu dhigayo xildhibaanka ugu da'da weyn mase cadaynayo xeerku in xubintaasi ay tahay musharax iyo in kale waxaa marka ugu horreysa xildhibaanadu ay gacantaag ay ugu kala codayn doonaan labada xubnood ee guddoomiyenimada u kala sharaxaan waxa ayna ku kala badin doonaan cod haldheeri ah intaasi kadib waxaa shirka hogaamin doona guddoomiyaha la doortay waxaana sii socon doonta codaynta lagu kala dooranayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad oo iyaduna si la mid ah sidii guddoomiyaha gacantaag lagu kala saari doono haldheerina lagu kala badin doono
aad iyo aad buu mahadsan yahay sidiiq maxamed burmad wariyaha b b c da ayaa warbixintaasi hargeysa goordhoweyd nooga soo diray bal haatanna aynu etoobiya ku noqonno mar kale dhegaystayaale muddo 8 bilood ah ayuu haatan dagaal ka socdaa gobolka tigraay ee waqooyiga etoobiya bishii noofembar ee kal hore ayaa fallaagada tigraay laga saaray caasimadda gobolka kadib markii ra-iisul wasaare abiy axmed uu amray ciidamada federaalka etoobiya inay wax ka qabtaan dowladdii gobolkaasi ee t b l f laakiin bishii juun ayay dib isu soo abaabuleen oo ay dib u qabsadeen magaalo madaxda gobolka ee maqale intaa kadibna waxay qabsadeen qaybo badan oo gobolka ah oo ay ka qabsadeen ciidamada etoobiya iyo xulufadooda dalka ay dariska yihiin ee eritrea toddobaadadii u dambeeyeyna xoogaga tigraay waxay weerareen gobollada ay dariska yihiin ee amxara iyo cafar waxaa ciidamada tigraay hogaaminaya genaraal takadan gabrasatene oo ah nin u dhashay qoomiyadda tigraay marna ahaan jiray taliyaha guud ee ciidamada etoobiya waraysi dhifa oo uu telefoonka satellite-ka ku siiyey wariyaha b b c da julian marshall ayuu generaalka uu ku weydiiyey wariyuhu sababta ay ciidamadiisu u galeen gobolka canfarta Tigray, the entire region is under blockade by Prime Minister Abiy Ahmed, and we have to break that blockade. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa go'doomin geliyey guud ahaan deegaanka tigraay waa inaan jebinno xayiraadaasina saaran meelahaan go'doomintaasi ka jebin karno waxaa ka mid ah gobolka canfarta arrinta labaadda ayaa ah in dowladda aan ku qasabno inay aqbasho shuruudaha aan ku xidhnay xabajoojinta iyo inaan wadahadal ka galno xaaladda guud ee ka taagan etoobiya marka saddexdaas shuruudood ayaan rabnaa in la fuliyo waa midda koowaade in go'doominta laga saaro gobolka tigraay oo gargaarka bini'aadinimo la gaarsiiyo gobolka tan labaadna waa in la joojiyo tacadiyada ka dhanka dadka tigraay ee ku nool addis ababa tan saddexaad ayaa ah in xabsiyada laga sii daayo maxaabiista siyaasadda u xidhan oo ay ku jiraan kumanaan ka mid ah saraakiisha ciidamada ee tigraay u dhashay iyo weliba shakhsiyaadka saamaynta ku leh siyaasadda etoobiya jaranka oo la weydiiyey inuu wax shalaytaa ka qabo colaadda tigraay ka taagan ayaa waxa uu ku jawaabay waa dagaal laga baaqsan karay si dagaalka looga hortegana ka muwaadin ahaan waxaan aad isugu dayay inaan la hadlo dhinacyada uu khilaafka u dhexeeyey ee tigraay iyo addis ababa xukuumadda addis ababa ma aysan rabin in wadahadal iyo qaab nabad ah lagu xalliyo khilaafka sidaa awgeed qaab xoogga oo sharciga hararmarsan ayaa lagu qasbay shacabka tigraay marka waddo kale uma furnayn oo aan ka ahayn inay dagaalamaan si wanaagsan ayay u dagaalameen waxaan ka shallaynayaa in dagaalka uu bilowday balse dhanka kale waxaan ku faraxsanahay in shacabka tigraay ay dagaalameen ayna hadda haystaan fursad ay ku dalban karaan xuquuqda ay ku leeyihiin gobolka taliyaha hogaaminaya ciidamada fallaagada tigraay oo b b c da la hadlayey ayuu kaasi ahaa halkan dhegaystayaal weli nagala socotaana waa b b c wararkii ciyaaraha haddii aynu eegnana maamulka kooxda muqdisho city club ee magaalada muqdisho ka dhisan ayaa shaaciyey in aanay maanta ka qayb geli doonan kulan ay la lahaayeen kooxda horseed oo ay la filayey in ay maanta wada ciyaaraan maamulka kooxda m c c ama muqdisho city club ayaa waxa ay isugu soo hadheen horyaalka kubadda cagta ee dalka soomaaliya kadib markii ay isku dhibco noqdeen labada kooxood haddaba waa maxay sababta ay maamulka iyo kooxda m c c u diidan yihiin inay ka qayb galaan kulankaasi maanta dhici lahaa waxaa warbixintan inooga diyaarisay kawsar maxamed cabdilaahi ciyaartan ayay u baajiyeen sababo farsamo sida uu b b c da u sheegay guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee muqdisho city club m c c ee abukar maxamed sheekh waxaa jira arrimo farsamo oo aan laga hadlin kuwaasoo loo ballansanaa in laga hadlo arbacadii lasoo dhaafay balse dib loogu dhigay sabtidii kaasoo markii dambe aysan ka soo qaybgelin maamulka kooxda horseed ayuu yidhi guddoomiyaha kooxda muqdisho city club ayaa shalay lahaayeen koob lagu xusayey duqii hore ee magaalada muqdisho allah u naxariistee injineer yarisow shalayna annaga waxaan lahayn ciyaar oo koob oo lagu xusayo duqii hore magaalada muqdisho allah u naxariistee injineer yarisow kooxdana tababar caadiyay samaysay maamulka xidhiirka wada socda ayaa waxay ugu yimaadeen garoonka injineer yarisow oo maalinta ciyaar ka socoto naadiga ku ciyaaray waxayna dhaheen waa ciyaaraysiin berito 11 saac galabnimo ay dhaheen waa ciyaaraysiin iyadoo farsamo ahaan laga wada hadlin oo warqad official xidhiirka uu soo saarin guddoomiye abukar waxa uu intaa raaciyey inay taasi ka diideen maadaama maalinkaasi ay ciyaarayeen koobka injineer yarisow oo maalinteeda xigtana aysan u suuragelayn inay la ciyaaraan kooxda horseed
11 saac waxaan dhahaa suurtagal ma aha oo berrito waa la ciyaara kooxda saaka tababaray samaysay mana ciyaari karto marka waxaan ka codsanaynaa ciyaarta in dib loo dhigo si farsamo ahaan wixii khaldan dhan loo saxo xaqna waxay u leedahay naadiga in 48 saacadood ka hor warqad official ah ay xiriirka usoo diraan. waxaa horey loo iclaamiyey wakhtiga la qabanayo kulanka ay ku kala baxayaan kooxaha dowladda hoose ee MCC iyo Horseed waxaana in ciyaarta xilligaasi la qabto diiday kooxda Horseed kuwaas oo markii dambena ogolaaday gudoomiyaha kooxda MCC Abukar Maxamed Sheekh waxa uu ku doodayaa inaana lagu soo wargelinin in Horseed markii dambe ay ogolaadeen in la qabto kulankaasi haddana nulgama wargelin inay Horseed ogolaato inay ciyaarayso warqadna xiriirka ma hayno kooxdana normal training samaysay way ku adag tahay inay koox oo shalay subax training adag samaysay inay galab maanta dheesho way ku adag tahay xataa ciyaarta meel ma dhigin injineeriso laakiin midaan kale ku adag tahay inay kooxda dheesho saakii training samaysay diris waxa dheelaysan caqli ma aha kooxdu waxay leedahay maaragtay technical macalinka uu weydiiyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ku adkaystay in la qabanayo kulanka kama dambaysta ah ee maanta taas oo keeni karta in Horseed ay 3 dhibcood meel cidla ah ka qaataan sidaana ku qaadaan koobka waa haddii kooxda maamulka MCC ay ku adkaystaan go'aankooda naadiga dowladda hoose ee MCC iyo Horseed ayaa labaduba lahaa 38 dhibcood ee horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya iyagoo ku kala jiray kaalinta koowaad iyo labaad taasoo keentay in labada kooxood ay isla aadaan kulan kama dambays ah oo midkood ku guuleysanayo koobka dhanka kale shalay waxaa bilaabmay tartanka 9 gobol ee maamulka Puntland kulankii ugu horeeyay waxaa lagu daahfuray gobolada Nugaal iyo Bari gobolka Bari ayaana 1-0 ku badiyay 3 iyo barka galabnimo ee maanta waxa wada ciyaari doona gobolada Sool iyo Sanaag aad iyo aad bay u mahadsan tahay Kowsar oo warbixintaasi inala socodsiinaysay dhegeystayaal barnaamijkaas oo faahfaahsan waa barnaamijka ciyaaraha oo intaa ka faahfaahsanna waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda dambe haddii allaha awoodda lihiidmo haatana dhegeystayaal waxaa la soo gaadhay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo hay Aligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Cumar Cali Raage oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Abukar Cali Raage waxa uu dambeysay isagoo ku sugan Qaahira Masar sanadii 2009 hadaba hadii uu maqlayo Abukar Cali Raage ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cumar Cali Raage ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay beledweyne Maryan Ibrahim Cabdi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Zaynab Yacquub waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016 hadaba hadii ay maqlayso Zaynab Yacquub ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryan Ibrahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe Safiya Maxamed Cilmi oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa Saara Maxamed Cilmi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Malta sanadii 2013 hadaba hadii ay maqlayso Saara Maxamed Cilmi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiya Maxamed Cilmi ayadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Madiina Diiriye Xirsi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Cali Maxamed Xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2017 hadaba hadii uu maqlayo Cali Maxamuud Xaaji ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Madiina Diiriye ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Axmed Muuse Xirsi oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa xamdan muuse xirsi waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Suudaan sanadii 2014 hadaba hadii ayna maqlayso xamdan muuse xirsi ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Muuse Xirsi ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso Zaynab Ibrahim Aadan oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Axmed Madey waxa ugu wardambeysay sanadkii 1992 hadaba hadii uu maqlayo Axmed Madey ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zaynab Ibrahim ayadoo wix wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Guure Cali oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Jees Guure Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2001 hadaba hadii uu maqlayo Jees Guure Cali ama bay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdulqaadir Guure Cali ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne Carfoon Bilaal Nuur oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Farduuso Bilaal Nuur waxa ugu wardambeysay sanadkii 2018 hadaba
haddii ayna maqlayso farduuso bilaal amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo carfoon bilaal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. cabdi cali warsame oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa kayse cabdiraxmaan warsame waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlay kayse cabdiraxmaan warsame amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi cali warsame iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. malyuun axmed jaamac oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa dahabo axmed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso dahabo axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo malyuun axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. xaliimo cabdulaahi muuse oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa cabdulaahi muuse cabdi yoome waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya sanadii 1996 haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi muuse cabdi yoome amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo cabdulaahi muuse iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. saafi cali oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa faadumo cali bare waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cali bare amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saafi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aamine maxamed ismaaciil oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa zaynab maxamed ismaaciil waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman haddaba haddii ayna maqlayso zaynab maxamed ismaaciil amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aamine maxamed ismaaciil iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iido aadan xuseen oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa xasan barow waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1991 haddaba haddii uuna maqlay xasan barow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo iido aadan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. canab maxamed xaashi oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa dadka kale ah cabdulaahi maxamed cabdulaahi xabiibo maxamed cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan kanada sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi iyo xabiibo maxamed cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiye canab maxamed xaashi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. iida cali talas oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa barqash cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 1993 haddaba haddii uuna maqlayo barqash cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyey iido cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. hindo aruus maxamed oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa maxamed aruus maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed aruus maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey hindo aruus maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. cali daahir macalin oo joogo muqdisho waxa uu baafinayaa mayow salaad waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo mayow salaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. aaniso ibraahim sheekh cali oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa fartuun bashiir hursi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jabuuti sanadii 1990 haddaba haddii ayna maqlayso fartuun bashiir hursi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aaniso ibraahim sheekh cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. xaawo maxamed oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa muuse maxamed waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1992 haddaba haddii uuna maqlayo muuse maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaawo maxamed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. qadro cabdulqaadir xuseen oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa faadimo cabdulqaadir xuseen waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xudayda yeman sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo cabdulqaadir xuseen amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadro cabdulqaadir xuseen iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. muumow liibaan xasan oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa xaliime isaaq waxaa ugu wardambeysay sanadkii 1999 haddaba haddii ayna maqlayso xaliime isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo muumow liibaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. siciid maxamed samatar oo joogo boosaaso waxa uu baafinayaa bashiir maxamed samatar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman sanadii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo bashiir maxamed samatar amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo siciid maxamed samatar iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. simar khaasim oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa bashiir khaasim waxaa ugu wardambeysay sanadkii 19
1990kii haddaba haddii uuna maqlayo bashiir qaasim amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo simar qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay muqdisho. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay casiise xaaji cali maxamed oo joogto muqdisho waxay baafinaysaa maslaxo duuliye cali waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan talyaaniga sanadii 1999kii haddaba haddii ayna maqlayso maslaxo duuliye cali amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye casiise xaaji cali maxamed iyadoo wixii waraa loosii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso. baafintiina maanta waa naga intaa. aad iyo aad bay umahadsan yihiin faysal iyo caasho oo inala socodsiinaya barnaamijkii baafinta intaasaananu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo waxaynoo ballanaa 5 galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabaday.